مجتمع فاسدك ديبك بدنا waxaa ka soo dhaxbaxay koox dhalinyaro ah oo aqli Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ku manaystay dhalinyarada wadamada galbeedka jooga iyo daayarta inay qisadani si wanaagsan u dhuuxaan dadka waalidiinta ana ay ubadkooda qisadan si wanaagsan u baraan una faahfaahiyaan duruusta ku jirtana ay dhageysiyaan waa arin lagama maarmaan ah dhalinyarada iyaga waxay ahaayeen koox aqligooda isticmaashay waxay diideen oo ay ku gacan saydeen inay ilaahaygi khalqay moogiyo cid kale u sujuudaan ilaahayga ay biyadihi kullu shay ay tahay ma ogiyo cid kale inay u sujuudaan oo cibaadada ay siiyaan bay diideen kooxda iyada waxay ahaayeen fityatun aamanu bi rabbihim dhalinyaro koox ah oo rabbigood rumaysay ilaahayna marka uu sugay hanuunkoodiina uu u sii ziyaadiyay ilaahay wuxuu ku ilhaamiyay oo uu qalbigooda dajiyay inuu wadada xaqa atuso dhalinyarada iyaga أنبياء ما أين نهين رسولنا ما أين نهين مشايخ علمك ميل فوق قادين ما أي سنهين لكن عقلي قوضي استعمالين وحين أقادين أرنتني إني عبادة هاي وبالتالي عبادة إلهي واحد كأمو به عبك لا أي سنحق أولهين ما هين مركز ضد إلهي وطفر كساري مسؤولية أنبياء هي مسؤولية رسول شعوكلة iyo inay dacwada diid qoomkooda ay gaarsiiyaan iyo wax la mid ah ma aysan ahayn waxay ahaayeen koox qalbigoodu uu iimaan galay haddana iimaan ma tahay meehe iimaanka uu qalbigoodu degay oo uu biyo dhigay waxay diideen waxaan ay dadkooda sameynayaan shirkiyaadka ah waxay marka hore ka dalbeen qaab caqli ay ula hadleen oo waxay yiraahdeen حجنا نسية أو دليل نسية وحنا سمين إنسان أبو هيسان أنا نسان إذن لا سمينه لكن مشركي بالدليل لو سهلي وما كذبنا وحيقوا عن سدين اللي يرضى يضع إن الدين سود بدباديان نفس وبالتالي نفسه أي بدباديان وحينقوا عن سدين إن أي قحان أو أي كسران دجمدي أي دجناين أين آدان مال أي كنا بدجلان يجي الدين تودا أي كنا بدجلان أي راسدين دجمداتي فساد كي فجوركو وكشري ضد كذا أي لمن إني كتجان بيجو أنسدين وحين آدين جد أما بهل مال بورا كتالله جد كاسو أن للدجنين oo meel hadda raaxo iyo deganaasho iyo nolol ay ka suurtoobi karta aan ahayn godkii isaga ahaabay galeen waxay wateen ay magaaladoodii iyo degmadoodii ka keensadeen godkii ciriiriga ahaabuna la galay u fiirso kooxda iyada ama dhalinyarada iyaga waxay ka soo tageen guryahoodii waxay ka soo tageen sariirahoodii waxay ka soo tageen qololkoodii waxay ka soo tageen reerahoodii waxay ka soo tageen saaxiibadood waxay ka soo tageen wax walba oo lagu raaxaysto cuntadii macaanay iyo saaxiibadii iyo ehelkii iyo qaraabadii iyo guriyihii iyo dariskii iyo meheradihii oo dhan ayay ka soo tageen waxayna soo aadeen god ciriiri ah ayay soo aadeen oo mugdi oon koronto lahayn مكيفنا عن لهين أي سوء آدين أرين كاسنا معها أرين غريب أما أرين لديك رسلوا السداء قدعي معها أرين معنيه سوء يهي أصلا بدأت النعمة كتشرة وحيث عليهم تخشفك وضبا وحيث أورانا يا شيطان وقلبي قودو وسواسيي وأرين إسكا طبيعي وهو ضدك أفريكان كي مساكين تاهنا inay u soo hanqaltaagaan wadamada hore u maray iyo reer galbeedka
kuwa reer galbeedka ana afrikaanka iyo buuraha la fananay iyo bahallada la cayrsanay iyo doofaar jilibeygaas ee hawdka la cayrsanay iyo waxa la daadaawanay iyo halaqa iyo in ay jeclaadaan waa shay dabiici ah ayay ku leeyihiin oo ibn aadamku waxa uu markaa hayo ma ogiye waxa kala la fiican arrinkaasi waa arrin ay wax ka jiraan laakiin waa kalimatu haqqin yuraadu biha al-baatil oo kuma jiro ninka iimaanku uu biyo dhigay arrinku markii iimaan iyo caqiido laga duulayo muwaasiinta noocan oo kala ah meesha ma imanayaan oo macnaheeda lama dhigi karo dhalinyaro waxay ahaayeen ladan oo raaxa ku nool kadibna doonayso inay godadka iyo buuraha ay u dalxiisto lama oran karo ee waa dhalinyaro iimaankoodii iyo caqiidadoodii la cararay wax walbo raaxa loo yaqaanana kala cararay diintoodiina godka la galay weeye mugdiga ah arrinkaasina arrin markaa qariib ku ama aha ala man mala'a al-iimaan qalba qofka uu qalbigiisu iimaanka buuxiyay qofka mu'minka ah saxarahan oo manaha ah ee cagagubta badan ee kulaylka badan ee aan lagu noolaan karin baa wuxuu u noqonayaa rawda iyo jardiinooyin iyo basaatiin iyo wuxuu u noqonayaa meel aad iyo aad u qurux badan oo qaaba khadraa ah oo biyuhu ay durdurayaan ayuu u noqonayaa waa goorma in axassa ana allaha maca hadduu dareemo inuu alla subxaanahu wa tacaala la jiro godkan isaga aheen sheegaynee dhalinyaradu ay galeen qasri oo kale ayuu leeyahay waa marka ay laakiin ku qanceen in diintoodu aysan ku badbaadaynin qolalkii iyo sariirihii iyo firaashyadii macaanaa iyo cuntadii iyo cabitaankii aadka u qiimo badnaa marka aysan diintoodu ku badbaadaynin ee diintoodu ay ku badbaadayso inay godkaa la galaan ixsaaska noocaas oo kale ah markay ka duulayaan godku qasri buu noqonayaa waxay tahay iimaanka iyo caqiidada almuhim dhalinyaradii iyada ahayd way baxeen guryahoodii bay ka soo baxeen iyagoo aanan markaasi diin iyo xoolo toona iyagoo aan adduunye iyo xoolo aan doonaynin ee diintoodu inay u badbaadan raba waxa ay doonayaan ee keliya wuxuu ahaa inay ilaahay raalli geliyaan arrinkaasina waa arrin ama aha arrin u baahan qasri iyo magaalooyin iyo horumar iyo xitaa nabadgelyo iyo colaatoona u baahan ma aha xitaa gaajo iyo dhib ama haddii kale taajirnimo iyo dherag iyo sanaad arrin u baahan ma aha cibaadada ilaahay subxaanahu wa tacaala waa wax fudud oo mar walba meesha aad joogto inaad ilaahay subxaanahu wa tacaala ku caabudo ayaa laga rabaa gaaritaanka ridaha ilaahay iyo in loo sacyiyo ilaahay sidii loo raali gelin lahaa laguna dadaalo waa arrin aan kaaga baahnayn wasaa'il fara badan waa arrin diyaar ah waa arrin mar walba niyadaada iyo go-aankaada iyo camalkaada suuban ku xidhan weeye sidaa daraaddeed ayaa waxa uu soo rarayaa الشيخ ابن قيم رحمه الله تعالى عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية وحكسه رقيا إساقه أو كتر حبسك أو أن إهل إيا قرابي أرحم إيا حقالات صونا أيسا صوبوقن كريم هي صاحبي أصدقات صونا أيوه أنا جنتي وإسلامي في صدر وإسلام بعرمي كلمة إذا يلاقي للقبول يبدأها عن تلك البيت يخرج للقبول لا يدو كتبا لا يدو كتبا يدور عن يشوفه يكون كتبا تلك الإسلام وأقول وأمين الله عليه وسلم إلهي أيها الإسلام كما تحدث الناس تطلع
ومرتبه ومعرفة إيه كان في مبشرين وهكذا ذاك الموضوع مركب تاريخي حتى تشوفوا أخذته وحتى يعني كانوا عقلين هي عذابين هي منقبتين هي حين هي قتل الله أنا وحمله أنا الذكر دعوة يدين مقاصرة أين يقول الثاني أيها فلان الإنسان وأصبح يعني أصبح ذلك محمد مطلق إني أصبح الذي إني يسوي أقول إني عيان إني الله عز وجل أي غريب كالمقاصرين بساتك وصاقي البر والبحر وصاقي محل الدنيا يقول ليس إلهي ينفر عظيمه إني جعلتني أفضل إن أرجع إلى أشد الصحي والسلام أكبر عظيمه وأقول لها صاحب الصحوة أصبح أكبر عليه رحمة أرحم الراحمين وأسكنه فسيح جنته وأقول لها وسبع عقيرة يتم وإلى دولته مساكنتي أي إني إليك الخرافات والشركيات وقد تدخلي إنت سوداني بدن أي أنت أبو أعلم أصدرها بطي وحتعني يتوفيك تعني وفكري شاعرك أنا زبيابه وقد أريد تذكرنا حلي لو حد جماعة وعقيري مني وحاولي خرافات والشركيات والكرة وجاشان أي تذكر أي تجليين بعد وحولي كنت يدوري دورتا يشوفك دوري فيك توفيق الجلساء كل مرة بالسنة أصبح عند الشارع وفيك من ملك توجيني ولكن فيك إلى مدى اللوحولي تذكر فيك الجرية التي لا صالوك عنها أصحاب الكعبي هي كلمة إنها وحي السميين وعين وحي المال بحيثورين وأكيد هي توفيق إليه تذكر حقيقة ولا اليابان فليس أين مرينا وحين مرينا كان المسلمين تاعها المسلمين تاعها وحين مرينا يمكن في حاجة تفكير يوم انترسيون نالكي اللي رأى في كمالا في مجلتين تاعها وقال حاجة إنه إذا رجعت التحديد أو تجيبون على وجود وفانا ترك خفيف أو تنشك وأيضون من عاقبت الشيء وحاصل الشيء أيام الأولين مرينا غير وحي مرينا ماصر الكتا كيلو برجالية كيلو فرعادية كل كمية بعرض من الدنيا ذلك وكولية رابط من نور السمية غير ما توحى مرينا من مقاطياتي أي ممكن وزير غير ما توحى مرينا ممكن ولا اللي يغني الأسئلة الجبلية إلهي سبحانه وتعالى أن عشير غير وحى مرينا بيسي البلدان غير وحى مرينا والتسكين أي الصفورين تدري ولا عبد وحي تحدي ناقل كل في فيها سوق الكريستيان وكيف أين وحي رسول جريمي أي كيف والله قولي غير والله شاغل إذا في مولكني غير وحى مرينا قفنا شقيمنا يملك وكفر حرارة كذلكها وحاول يوصلين المعاصف والمناقرات من وسع إليه أما قرار بين النور بين الغاز المرينا الشرطة في مركز وصل مصر يوصلين هي أصحاب أي يوصل إلهي سبحانه وتعالى حتى سيرى عليه شرط قرامة ولا الليل لوضع عليه ترجع كيف يسفر عظيم أيانا في كذا زيادة كفرة لأن يقول تكفي الكلام وين الشيخ كيف يلتف إليه مكتبك يجب تعلم فريقين وكتبت على مركة ربانها مركة يستخدم أي الله سبحانه وتعالى سلاحه وإيكي أصبح بحوث هي السيال سنحيي كتبي شنو غايين وإيكي الرقاق يدعك وأن القرآن مكشفي سورتنا أي كشف تجارة مكشفي وذلك يدعك ويصبح بالتخلص ويستقال كالسماء وقت أي كتبين صراحة المحكي توضح دوانيها كنت رأي كعين لنك يوسى أيين شعاع وسمعي حكي فيك
dadka sidiisa ah ayuu ka bareeyey sidka qaxda iyo siraaca iyo kulaylkeeda iyo dadka ay ku jiraan iyo kulaylka aysan kugu kulmo ayna markaa uga jirsanin daraaddeed ayuu alla subxaana watacaala markaasi qoraxda siraaceeda oga yeesinayey iyaguna way isdedejinayeen oo sidii dadkiisa oo kale ayay kalba labada dhinac mid isu dejinayeen si markaa jidooda uusan u dhimayn ilaani 3 boqol iyo wax la mida iska daayo haddaad 8 saacadood ku xidhan inkastaaba dhinacu ku xanuunaya weliba kuwa laga yaaba sariir aad macaan inaad ku fiirso maxaad mooday marka nin dhagax iyo dad nin shaarcadkacayo markaas boqol maxaad moodaysa way gadgadoonayeen marka jidkoodu markaasi uusan u korjirin qofka markaas idiya way soo kor istaagaa wuxuu doonayaa inay diisaan laakiin way soo jeedaanoo iyagoo indhaha kala hayo ayuu ilaahay muddo kusoo yaqiyey sanadaha farada badan ee 390 markay sidaa ahaayeen ayuu alla subxaana watacaala dib usoo bixiyey uu dib usoo nooleeyey hurdadii dheeraydna way ka soo kaceen laakiin waxay ogaadeen waxay moodeen aan idhaahdee in ay maalin iyo habeen keliya inay meesha joogeen marka kood waxay leeyihiin dadweyniyana waxay yidhaahdeen waradii intaynu jeediyey qaar waxay yidhaahdeen maalin qaarna waxay yidhaahdeen maalin iyo barkeed ayay yidhaahdeen laakiin markiiba kuma ay intii fogaanin kuwa arkay weydiinta su-aasha noocaas oo kale ah waxay marka guda galeen in ay umuurahooda ileen waa dad ama laba caalamaan ama 3 caalamaan inay iyagu haystaan meesha guda weeye waana in wax la furo oo wax la cadasoomaana waxay damceen marka inay wax soo iibsadaan lacag marka ay wateen ama qaabkoodu watay ayaa la soo bixiyey mid iyagii ka mid ah waxaa lagu yidhi orodoo magaalada aad adadan qarinaya oo wax nooga soo cunto wanaagsan oo looga soo iibaaliyuu yidhi lacagtii markaas waagaa la isticmaalayay ayay wataana ugu kadibna waxay ku yidhaahdeen markanaad magaalada qaadaysid waa adinkii magaalada xukumaya boqorkii daalinka ahaa iyo dadkii marka cabadinayey ee shirkiyaadka iyo khuraasaadka waday inad ku arkin hadday ku arkaan way ku ciqaabayaan ayaysan ku arkaya ismariyo adoo duumanaya intaa sida u gasho magaalada looga seexo inta aan cunno iyo cabitaan aan cunno ayay ku yidhaahdeen dadkiisna iska ilaalina way ugu dareen oo haddii aad ay ku qabtaan arrimoo midbay ku gooriyismaadku in aad shirkiyaadkoodina waxeedu la qabsato iyo inay dhagax kugu dilaan labadana waa laba arrin oo ay kala daran laakiin labada laba arrimood oo waxa weeye aan wanaagsanayn laakiin hadday markaa qabtaan in dhagax lagugu dilo ayaa ku dhaanta ayaa ay ku yidhaahdeen dadkiina markii magaaladii tegay oo uu damcay inuu lacagtii wax ku gato dadkii hadda uu la yaabay isbedelka ku dhacay iyo degmadiisii ay ku bedeshay inuu la yaabay maalintii habeenkiihu isbedelka noocaas oo kale aad iyo aad buu loola kasafaaray olana xanaaqaagay dadkii magaalada deganaana markiiba kumada bixnayn inay ogaadaan ninkani ninka qondaha oo aan hore loo aqoonin inuu yahay oo magaalada ku dhashay marka inuu gariib yahay markiiba way yidhaahdeen laakiin waxaa la yaab noqotay iyo takafaar markay arkeen lacagta uu doonayo inuu wax ku iibsado kadibna waxay ogaadeen dhibada inay way hayeen in ninkani uu ka soo haray waagii dhallinyaradii siisida ka carabtay ee ilaahay rumaysay tawxiidkoodana la carabtay ee diintooda inuu ka soo jeeda ayay ogaadeen waa u daqaayaadkooda bay lahaayeen weli warramihii waxay yidhaahdeen boqorkii qaalibka ah halaagtay nin kale oo saalixa ayaa muslimiintii qabsaday dadladii marka aad bay u farxeen inay arkeen dadkii diintan uga horreeyey waana arrin daqiiqiya oo diinkani aynu ku raaxaysanayno aynu ku tabashmaynayno aynu sida fikaya ilaahay
أول الإلهي هي قدرة الإلهي الله أكبر تجد الله وحسوس الضعف حقيقتها الإلهي سبحانه وتعالى تجده وقت بدونه لله وقت صار قيامها يحفر كان الله وحسوس من دونه بس أيضا بتبع شيء الإلهي بدونه يذكر بكل صار فجد أنا أخبار الله بتبع أيضا القرآن كافر إلا من بعد الدين القرآن كافر بتبع أو القرآن كتب موضوع مرحب وإنسان أما تفسير آيات ما أول مستقبل عشان يقولنا وحي يستكشف كتاب الله إلهي سبحانه وتعالى وجد حديث أن أصحاب الكهف والرهبان من آياتنا عجبا أول فتنة إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحيا بما لبثوا أمدا أيضا تدرابي على آياتك لم يكن ما تلجأوا إلهي يقول الله ورحمة يا وينصرنا بسبع أصحاب الكهف الذين يدعوا صوبا قلت سوشيا بيه إلهي الله ورحمة تفكير الدوراء يدعو لك آمين نبي محمد إلهي كهف الصغير والله أن يحتاج لتبعيا أما أصحاب الكهف ومن غير الكهف يقول صاحبك يا رب كتاب من آياتنا عجبا وواحد أصلا ليس هذا الكهف والحكيم أو تجدون ربين قوي إن أيدين آياتك اللي تقول يوسع كان أنه لا معي إلهي بعد تعمل وإذن شو والله يا أخبر والله عجبنا بيع عجب معها ويقيم منك على صوت ولا يوحل يافية معها مركا لبركة بقدرة إلهي هي أول فالمثل لبركة بخلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار هي تقليد إلهي المستقبل وضحك هي سبحة هي اتباعها هي آيات إلهي من بين بينات هو وين بتلك وقدرة إلهي سبحانه وتعالى يقول إلهي يعني قادر على كل شيء يعني إنك إلهي لا يجوزه شيء يعني يا أعجب من قال الحديث يا الله يا قدر آيات قدرة إلهي جاء قدرة إلهي قدرة كونها حتى الفرشة من يا الله يا قدر وحي لي أمر كل من أصحاب الكهف في صدوره لكن أصحاب الكهف يوم وقفة وهي في جبل ومن قطعة أو فوقيا له ورميتي أي وحي قليانا هي الفتوى في حتى أي سهل أي جلين ويسمى الرسول وآيات المسلمين عن حقيقة أن أصحاب الكهف والرسول قالوا إني أبواب فوقها أي أهل كافية يعني الرسول وهم هو الصدق ليس أين الإله وهو والد ومدى الصدق والد وما كانوا إلى الرسول الكتاب وحنا بديه أنه وقت أعطاه وحنا بديه وأي المرسول ذلك آياتنا الكافية ونجح الذي جرينا قبلنا إذا كفر ووجه إلى المسير وفعيل وأنا بمعنى مرسول إذا مرسول بقتيل موجود هذا مجروح من الجريح موجود هذا والجنة عند الله فاسد يسري يوجدين خبري الرسيل من يحي شيء لقليه وحيوه من يحي إذا والفتية الإنسان فقال ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا يؤمن بسوريا وضع يد عليه فيكو بالحرمين سيد الدينكو إلى عرف الموجين وحين كنت الكلام للكلام هو دين يسمونه دين ويتحرمين لا يؤمن ويسكني رحمة يلقى نحريف هي بالمن تؤمن الله سبحانه وتعالى هذه الأواصف له وحين هذه الأولى المحيطة إذا ترك دينها وما حقيقة إله التوحيد والإسلام بالدين هي خير الله يفكر وتكمل إلى أن يكون واضح فهو البشر تعالى كما إله تكتب فهو البحثين وداخل الكرسي
السماوات والأرض فكيف يحول وحن كيف إن أي قصة يسوق إن أي خلافات وأي داعي دورتان أنا كحقا يكون أي دورتان تنقيك بالسيدي وأن تنقلوا لكل المدوية ربنا رب السماوات والأرض والإعلان وتوفيق من الله تبارك وتعالى إليه الذي هي سعادته هي نعمته هي جزائه هي كفيين إن أي قرآن هي ولذلك أيوب غير واحد من المفسرين من السلف والخلف في كتبه المفسرين كافروا الجهنم وصور الجنة بالصلاة وسلم وحيث السجن إن اللي يرى في عليه الأفلام بالسجود من غير مع تضرره بيده في حي من صلاح على كلام عليه بالسجن وبيده يقولها غير سماها وبيده وتجربة في رسول الله أسماء أي معادلة مواقيت أي إنسان أي كفر وكل أحلام الناس وحشد في ظالمة وجبارة ومن يتسيامون برجل يقولون عن إليه إذا نامت إليه بريان إما رسول الله اليوم واللي يرضي الحركة صحيح من عطيالكم سمين أيام يصدقوا حكم إلهي ما حق في الشيء وحي سمين أيام في أركان حكم الغير لحركة لا ينبغي إلا لله الذي خلق السماوات والأرض إلهي لكم سيئنا السماوات والأرض سميه وهي عدة لأنه حركة من شيء هذه تجميلة بالنسبة للمتحدثين ورسائل الحديث والإمام قولي عقيدته على أفضل الشيء هذا المكتب وجد في مكان يتفجر فريقين لكن لا يغلق الرسائل المحفوظين ورسى الإمام قابلون قولا جلين بعد كان يكون الرسول بعد صلوات ربي وسلامه عليه كما في الحديث الأرواح الجنود المجندة وما تعارف منها اختلف وما تناكر منها اختلف أرواح وتصلحهم وأصيب من الفاعل ذلك عشان تحكي وقدارة ويجب من تغير متى الإنسان والاختلافات ذلك يقولون توفيق أوزر وواحد من الكوشة لو أيقظ ما في الأرض لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما هو بين الوجود ولكن الله أنفق بينهم إلهي يقولون الحكمة مرة واحد من الشيء يقولون إن وتوفيق إلهي وأن يكون بكتاب الله وحقه أي شاهد القرآن إلهي يكتبه وشرع رب العالمين جل شأنه للقدرة ليكون القدرة ليقرأ القدرة اليوم وقد بكتب من الدعاء إلهي السوري وحيكون رجع عليك يدع ما أمكوا يسكر ما أذكر المنكر فعلا وأنا مجا في أصحاب الكيس ولا الودان وأي نفسي ينال في الشغلان يجب إلهي نحسن الصدام ويجب أن يقول طرقات أيامك بإذن الله سبحانه وتعالى وربطنا على قلوبهم إدقام وكفار ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد كنا إذا صدقا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا تفسير في مركة ولا مريم آيات ربنا هاي لكن وحيث وجدت الدنيا قالوا هذا هو تفسير وليه لا غير عظيم وأي مؤلفة في ميثاق في كتب أصحاب الكهف
هي الدعاء الربانيين تنكر هي مصدر ولي وتذكر عن شرعين يجب بسم الله وجود الدين التي تبقى وبريسة هو إن أكبر وأن صاحبه iyo in aad aakhiro aad kusiisato oo dhibaatada kugu dhacaysa iyo handadaada lagu handadayo iyo waxa lagugu maashaynayo oo dhan markaad ka bardhigto aakhiro waxa weeye wax yar oo aan macno lahayn oo aan sagaalaba ka fiirsaninay kula noqonayaan nabigeena sala allahu calayhi wasalam oo nabi maxamed ee muslimin ayaa la amray amarka nabiga iyo waxa laga taagiyeyna qofku waxyabayasho ayaa ugu sugan asbaacda nabiga calayhi salaatu wasalaam ilaaha lagu dare waxaa la amray inuu dadku ku salaysiiyo muminiinta macooda al-isbaas almuniibiina alladiina yadcuuna rabbahum bilghadaati waalcashi kuwa rabbigood caabudaya inta hore iyo inta dambaba aroorta hore iyo cishaha iyo awali nahaar iyo waakhirihi kuwa ilaahay caabudaya iyaga oo yu'minuuna bidalika wajha allah ilaahay wajhigiisana ula jeedo cibaadadaasi ay daacad ka tahay kuwa iyaga ah inuu naftiisa ku sadarsiiyo la saaxiibo meeshii joogaan uu joogo iyaga oo wiil iyo hoo iyo maxabo iyo kalgacalaba uu siiyo ayaa nabiga sala allahu calayhi wasalam la amray bistaagi asxaabu rasuulillahi sala allahu calayhi wasalamna arrinka isaga ah waa la amraya oo arrinkii amarku waa kuseeya iyagana ilaahi subxaanahu watacaala kuwa yidhi markaa lagu salaysiiyo bistaagkiisu magacaabay cibaado inay hayaan aroorta hore iyo marka dambe ayuu sheegay ikhlaasku ilaahay ku tilmaamay iyo daacadnimo aayaddu markaa waxayna faraysaa bisafati akhyaar iyo wamujaahadati nafsi inaan akhyaarta la saaxiibno oo aan akhyaarta sidii loo sheegaysa intii xag ilaahay soo siinaysa intii aayaadka ilaahay kutusinaysa inaan la saaxiibno inta xanta iyo xumaanta iyo kala qoqobnaanta iyo iskudirkinta iyo xumaanta oo la baaqiyo inta doodiya aan wax kala ku kordhinaynin inaan ka fogaano ayaa ilaahay uuna amray ama inay ma sheegaysa mujaahadatu nafsina in nafta lagu laymiyo haddaad doonto qofkan isaga ah iinan istifaka ahaanin iinan istiaf ahaanin laakiin marba hadduu yahay addoon ilaahay mar hadduu yahay maa u malaynaysa qof nafsi ah oo ilaahay kaaga dhow inaad u dhawaato oo aad u saaxiibto ayay aayaddu faraysaa fi sifati alakhyaar waxa weeye min alfawaa'idi maa laa yuxsaa wax ilaahay inuu kuu koori karo oo aan la koori aan kala lahayn oo faa'iida ayaa ku jirta akhyaarta oo lala saaxiibo ilaahay wuxuu nabigiisa ku yidhi walaa tacdu caynaaka canhum turiidu zinata alxayaati dunya indhaha ha ka marinin kuwan oo araggaada ha ka koryeelin adigoo doonaya adduunyo iyo kalkalaalkeed adigoo doonaya adduunyo iyo kalkalaalkeeda in la doonana waa baatil hayr naafic oo macnaheedu ya waa mudug maslaxadaada adduuniya maslaxadaada aakhira ayay mid ku tahay waxayna ku dhaxalsiinaysaa qalbigaada inuu adduunyo ku tacalluqo
ومركا أرنك أيضا أرنك تجارتين وحاولي أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم أولا قلت إلهي كذبت أوضع عرض الإسلام وقال لي هذا المسبوق أن الرعايا لي هذا يا أوامرك كل يوم الله أتى هذا إله الذي هذا أولا هي مركا وحي جونيكم شيطان الناس يكون وضعتها راعبه يجري إلهي يعني واجب كيسين فالصوت ربي يا إله واجب كيسين وهذه خسارة عظيمة وخسارة قلبت مني فتقول ربنا آيات كافرين وأروري واذكر نصرة مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه لكن إن شاء الله تعالى وحن إليه إنت يمكن أيها الأحبة فعن قصة يا عالم كله ما يستفاد من قصة أصحاب الكهف وأنا منهج المواد الدولة في الشغل بمركة يمكن وحيابها لا يقع إليه دروسها أي مطرفين إن شاء الله هو حول وظيفة المؤمن والتفكر بجميع آيات الله التي دعا الله لعبادته إلى التفكر فيها فإنها مفتاح الإيمان وطريق العلم والإتقان وقت مؤمن كأتفكر وحاول إن تفكر كمان آيات إلهي سبحانه وتعالى يكون لجوه من تفكر وأدومه الكونية محايا تفكيرك هي فكرك هي عقل ولنفسك يسير ومفتاح الإيمان إيمان تكون مسؤولة ووصلت أقوال هي علم ومجاهدين لهي هي إسلام كأن أقول الناس اللي وصل الجلية عن الصوت وحكي جاريك تفكيرك هي عقل للكريم هو التفكير لبضل آيادات لبضل نمبر لبضل فإذا لبضل آيادات قبل وكذلك بعثناهم ليتساءلوا يا لنجار ولن تصبحوا إذا أبدا وآية كذلك يتكاد آية لما تنالت فوائد صورة هي في الكتاب هي كمان صدق فوائد أيضا فكرة وحياة تفكر بيقول يا شيخ إن شاء الله هو الحث على العلم وعلى المباحثة فيه ومن يكتب ويتم شرعي أولية ليكون نورنا اليوم حاجة إلهي سبحانه وتعالى وحاوط صار أصحاب الكهف إلي وحدالات إلي وحدالات وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائلين أيضا حيوته هناك أهمية العلم هي أقامت من متى إليها وذلك حصل وحاصل وصل وإحدى لوضع عن شكر الأدب بمن اتبع عليه العلم أن يرده إلى عالمه وأن يقف عند حده قصدي وحكمته الكلام وشيء أقول في كرسي لا يهم مثله كمكه عظيم وحقيقتها وأخلاقها هو لكن إن علمي اللوح اليوم لا في عالمك عمدوح اليوم وحي الجهد فكر في سيدة الكلابين وأخلا وأنه وحدك الله أعلم بما تنعون كيف نبقى يقول يا ربكم أعلم بما لبثتم وابعثوا أحدكم من ورثة الآن من المدينة وكفرت من الكتاب الكلامين من الإله العلمين ذلك الكلام وخلص الكلام الدولي المحاولي صحة الوكالة في الليل والاختراع إن وقت لو الكلام كانوا وحلوكم في المدينة كانوا يجي لكري ولا يبقى يمكن أن معك الناس يجي من قدر ما وصلت وحاكموا بالنسبة لنفع إليسية بسكة كلمة جوائز أهل الانتباه والنساب إلا الفصل إلى حد الإشراف النبي عنه وأوجه الله لقوله تعالى لينظر أيها أزكى طعاما فليأكل برزق منه وحاكموا لنفع إليسية وحيامها حلاشها هي وحيامها نعم بالله إن كل الصورة وولد لنبر بالصورة وحرصوا الصورة يستطيعن دورته محايلة وأن أنه أزكى طعاما ويأتي بالرزق من صورة تطلع أي يعني أنه رزق
galay ay ahaayeen awlaadu muluk inay ahaayeen maxaa yeelay markay soo baxeen ee kusuray baasanayeen waxay dalbadeen cuntada midda ugu fiican bay dalbadeen oo noloshii horey ku noolaayeen iyo middan ayaa isleh qodobka toddobaad ama darsiga toddobaad ee faa'iidada ah waxaa weeye fikradan aynu ka faa'iidaysanayno iyadoo bulshada kulligeed ay faa'iido tahay laakiin waxaan si gaara u sheegaynaa alxaqu cala ataxarus iyo walistiqbaal albacdi can mawaaqic altanfidiin in laysu dooriyo in aad looga digtoonaado la iskana qariyo lagana fogaado mawaaqicda fitanka meelaha fitanka ah ee fiiriga inaan loo dhoweynin rasuulka sidaa lagu bixin fitan badan baa jira waxyaabo badan oo culimada ay noo sheegeen baa jiroo yidhaahdeen fitan baa jira dagaalada noocaasa waa fitno muranka noocaasa waa fitno siyaasada noocaasa waa fitno waxaasi waa fitno ay culimadana yidhaahdeen baa jira waxaasi marka ugu gaarsan meehe waa in laga digtoonaadaa oo laga gaarsadaa oo waxa weeye in cayn yaroo ari intaad gadato oo aad hawska la gasho ayaa kaaga khayr badan marka qaar inaad ka qayb qaadato fitanka noocaas oo kale ah si ay diinka isugu badbaado khaasatan xilliga fitnada waxyaabaha iska cadcad ee waadixa lagama hadlayo laakiin markii xaqa iyo baatilku ay isdhex galaan aad kala garan weydo cidda xaqa sheegaysa iyo cidda baatilka sheegaysa aad kala garan weydo inaad cibaadada ilaahay iyo tawxiidka ku kala xariiqto waxaad kusana ilaahay aad ugu dhawaato waxa la isku haysana aad ka fogaato culimada rabbaaniyiinta ee diinta kaaga faramuduubanna aad ku xidhnaato waxa weeye duruusta aanu ku qaadanayno qisadan iyadaa darsiga ugu weyn weeye ilaahay subxaana watacaala ana garansiiyo waxaa kale oo ka mida oo iyadana noqonaysa sideed shiddatu raqbati haulaa'i lfitnati bidiin dhallinyarada iyaga ah siday diintooda inay ola cararaan ay aad ay ugu hayeen raqbada iyo rabitaanka iyo wasurarihim min kulli fitna fi diinihim iyo watarkihim iyo watarki awqaanihim billah dadlooyinkoodii iyo dadkoodii inay ilaahay darkii oga tageen si ay diintooda ugu badbaado iyagana waa qodobka sideedaad qodobka sagaalaad waxaa weeye mararka qaar haddii ay laba dib ay kuqabsadaan laba dib haddii ay kuqabsadaan oo aad daballa gasho labada midka daran baa laga cararaa haddii laba shay oo khayra ay ku kulmaanna kasii khayr badan baa la doortaa khayru khayrayn iyo sharu sharrayn baa la yidhaahdaa labada dhibka daran baa la doortaa yaa laga cararaa cadla labada khayrna midka wanaagsan baa la doortaa maxaa yeelay darsiga xageen ka faa'iidaysanaynaa waxaan ka faa'iidaysanaynaa walan tuflixuu idan abadaa waxaa la yidhi haddii ay nimankii uu boqorkii daalimkaa uu xukumay iyo nimankii la xukumayda haddii ay ku qabtaan laba arrimood unbay ku goornimaad gelinayaan inay shirkigoodii iyo baatilkoodii kuu celiyaan iyo inay ku rajmiyaan haddaad ka yeesho inay baatilkoodii iyo shirkigoodii kuu celiyaanna walan tuflixuu idan abadaa wallahi inaynan weligii miidaanay ku geeyo marka laba daran kasii daran oo aanay diintaadu kaa sameydo aakhiradaadana ay kaa xumaato ayaa laga cararaa lagana fogaadaa toban iyo qodobka ugu dambeeya waxaa weeye